shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigtay qiimo dhimis ay ku sameysay adeegyadeeda qaar ka mid ah gaar ahaan wicitaanka gudaha dalka iyo dibadda. Sidoo kale shirkaddu waxay soo kordhisay adeegyo muhiim ah oo ka mid yahay adeegga la soo hadal oo dalka dibaddiisa lacag ahaan lagaga soo wici karo. Cabdiqaadir Xasan Sheekh madaxa qaybta ganacsiga ee shirkadda Somtel ayaa shir jirayd u qabtay waxa uu kaga warramay adeegyadan cusub. Shirkadda Somtel waxay macaamiisheeda u soo kordhisay u samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran oo ah xagga dibadda iyo gudaha. dibadda waxaa qiimo dhimis loo sameeyay wadamada Yurub, Canada, America, Shiinaha iyo Hindiya. waxay halkii dollar ku hadli karaan 10 daqiiqo wadamadaas aan soo sheegnay iyo kuwa kaleba. wadamada Sacuudiga, Imaaraadka waxay ku hadli karaan iyo kuwa la halmaala waxay ku hadli karaan 6 daqiiqo ayay ku hadli doonaan insha Allah. adeegii gudaha ee telefoonka halkii dollar macaamiisheena waxay ku hadli karaan 70 daqiiqo habeenkiina ilaa 100 daqiiqo. waxaan kala u soo kordhinay adeegga ila soo hadal oo adduunka oo dhan dadka jooga eheladooda ama ganacsiga ama wax kasta oo xiriira oo ay daneynayaan customerkeena ay si lacag la'aan ah ay kula soo hadli karaan dalka gudihiisa. adeegga ila soo hadal kaas oo kirada laga qaadayo qofka customerkeena ay tahay oo kaliya $15. Cabdishakuur Xuseen Shakra, Home Cable TV.